Soomaaliya shalay waxay u dhaqaaqday dhankaas iyo horumarka iyo sidoo kale inay Soomaaliya noqoto waddan xor ka ah dunida intiisa kale. Balse ugu horreyn daawade haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir, haddii aad horey noola joogtayna muuqaalka inoo sii sheer garee mahadsanidin. Maalinimadii shalay ahayd dekedda weyn ee Muqdisho waxaa soo gaaray markab weyn oo laga leeyahay dalkaas iyo Turkiga, kaas oo muhiimadiisa ugu weyn ee Soomaaliya loo keenay ama uu u yimid ay tahay inuu soo saaro ama uu baaro kheyraadka dihan ee Soomaaliya ay leedahay ama badda hoosteeda ama dhulka hoostiisa Soomaaliya ugu jira. Kheyraadkaas oo ah mid ummadda Soomaaliyeed hadda ka hor aysan weli horay uga faa'iidaysanin. Balse daahfurka markabkan iyo soo dhoweyntiisa madaxweynaha Soomaaliya ayaa khudbad ka jeediyey maalinimadii shalay ahayd, isagoona sheegay dhowrkii toddobaad ee u dambeysay ama labadii toddobaad ee markabkan uu soo socday inay soo gaarayeen fariimo badan. Fariimahaas oo uga imaanaya wadamada caalamka ugu waaweyn iyo kuwooda ugu quwadda iyo dhaqaalaha badan, kuwaas oo codsanaya qaybaha iyo jaanisyada kale ee Soomaaliya ka bannaan inay iyaguna shirarkooda qaataan oo ummadda iyo dadka Soomaaliyeed uga faa'iideeyaan, maadaama Turkigu uu yahay wadankii ugu horreeyay ee ku dhiirrada inuu Soomaaliya yiraahdo shidaal ayaan u qodayaa. Balse iyagu in badan ay ka baqayeen ama ay dad kale u xirnaayeen shirarkan oo in badan Soomaaliya iyo dadka dunida kale loogu sheekeynayay waddankan waddan argagixiso ayuu yahay oo amni ma lahan oo lagama qodi karo shidaal ama shirar lalama geli karo ama kambaniyo iyo dad kale oo caalamka ka socda ma tegi karaan. Balse taas dowladda Turkiga ayaa beenisay oo noqotay wadankii ugu horreeyay ee ku dhiirrada ama Soomaaliya yiraahda shidaal ayaan ka qodaynaa oo caalamka ayaanu tusaynaa Soomaaliya inay kheyraad leedahay oo yahay waddan amni ah oo aan cid kale u baahnayn. waxaana rabaa dadka Soomaaliyeed inaan u sheego waayahan dambe oo dhan saddexdii usbuuc oo markabkan soo socday iyo usbuucyadii ka horreeyay oo heshiiska wixii ka dambeeyey Soomaaliya danayn badan in la soo wada aadayay, su'aalo badan, maxaan qaban karnaa, maxaan idinla qabsan karnaa, maxaa haysaanoo fursado ah oo maxaan ku rahday ka wada faa'iidi karnaa. su'aalahaasoo dhamme in hadda nala weydiinayo waxay daliil u tahay in mar kale adduunyadii ay dib noogu soo jeesato ayna soo eegayso. waxaan rajaynayaa dadka Soomaaliyeedna aan ka rabaa in aanaan beerdaraynin fursadahaasi sida keliya ee ugu habboon. shabaab nagama hor istaagi karo, cadow kaloo ajnabi ah nagama hor istaagi karo. hal shay bas ayaan u baahannahay inaan la nimaado. waa maxay? dowlad wanaag iyo dowlad rasmi ah oo dalka ka hana qaado, oo Soomaalidu ay heshiis ku tahay, oo ay isla wadato, oo ay maxaan ku rahdaa darfaha xajarul aswadkii rasuulka calayhi salaatu wasalaam maxaan ku rahdaa iyadoo la isku haysto uu yiri qabta marada darfaha inay dadka Soomaaliyeed ka wada qabtaan dowladnimada, oo aan dowladnimadeena xoojinno waaye. haddaanan dowlad xoog la haysanin, annaan helin oo sharciyad xoog la leh, oo dadka Soomaaliyeed raalli ka yihiin, oo dadka Soomaaliyeed is aqbaleen, isu dul qaateen, ee hore u socdaan, haddaanan la imaanin ma ka faa'iidayno fursadaha ay caalamka uuna siinayo oo middan walaalaheen Turkiya ayna siiyeen ay uga hormarto. sidaas daraaddeed waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inaan ku booriyo. waa fiicannahay, dalkanagu waa fiican yahay, khayraad badanaan haysannaa, wanaag badanaan leenahay, meesha dalkeenna uu ku yaallaa muhiim ah, walaalo fiican oo na garab istaagaya iyo saaxiibbo fiican ayaan caalamka ku leenahay. Soomaaliyey, annagu aan iska kacno, annagaa isku fadhinne annagu aan iska kacno. adduunyada siday u nooshahay aan u noolaanno, adduunyadu sida ay dowlad u leedahay aan u yeelanno. ma ahin mana noqonayno dalkii ugu horreeyey ee batrool shidaal soo saarto ama yeesho, ma noqonayno. waa nalooga horreeyey, qarniyaalaa nalooga horreeyey, khibrad badanaa adduunku leeyahay. waa aragnaa dadka batroolka soo saaray ee ka faa'iiday siday uga faa'iideen. waa aragnaa kuwa ka faa'idi waayey ee inta boob ugu jeestay isdhacay ee isku dilay, lacagtii shidaalka ka timid ee isku dulleeyey, ee maxaan ku rahaa dadkooda ku laayay, dhiiggooda ku daadiyeyna waa aragnaa. labadaba caalamkay joogaan. midda aan dooranaynaahi waa khiyaar annaga aan leenahay, annagayna jirtaa inaan batroolkeenna horumarka, wanaagga, sharafta iyo karaamada iyo haybadda ummadda, waddan casri ah, nolol casri ah, dad maxaan ku rahaa qudrad leh, inaan ku maal gashanno wixii aan ka helno khayraadkeenna.
iyo inaan xabado iyo madaafiicna looga iibsado oo aan annaga isku laayno lacagtuna ninka xabadaha naga iibiyey aado labadaas waddaa horteenna ka muuqata waa inaan qaadnaa midda saxda ah oo ah khayrka ilaahayna siiyey intaan ilaahay uga mahad celinno inaan ummaddeennana waxa ay mudan yihiin iyo nolosha ay mudan yihiin iyo haybadda iyo karaamada ay mudan yihiin inaan ku siino ay ku helaan waayo waddada saxdaa inaan marno ilaahay hadda waxaan rabaa dadka soomaaliyeed inaan u mahad celiyo bogaadiyo meesha ay mashruucan iyo heshiiskan ay ka istaageenba inaan ku bogaadiyaan rabaa si gaar ah fursaddan waxaan rabaa inaan uga faa'iidaysto u mahad celiyo xukuumadda dan qaran iyo baarlamaanka federaalka ee soomaaliya ee heshiiskaas si wada jir ah oo aan ka hor imaad lahayn u ansixiyey fahmay arkay dareemay maslaxadda ku jirta ee si wada jir ah u ansixiyey ee u aqbalay aad iyo aad ayaan ugu mahad celinayaa wixii saxda ahayood garateen waddadii saxda ahayood marteen waayo wax kastana waa intaasoo loola sii dhowaadaayo sida aan heshiisku u ansixinay sida aan arrinta u soo dhoweynay sida wiilashannadii marmarka qaarkood xataa maxaanku yidhahdaa social mediaha waxyaabaha aan habboonayn ka day jiray ay ugu midoobeen dalkii inuu maxaanku yidhahdaa waa cusub u baryey hore oo u sii socdo ay maxaa u taagan yihiin social mediaha dhexdiisa ayadaasna waa calaamad kale oo tilmaamaysa